maalmahan waxaa la ii sheegay in dhalinyaro Soomaaliyeed oo dhigta ama ka soo baxay jaamacadaha magaalada Muqdisho ee jaamacadaha waddanka ay ka yara walwaleen in xukuumadda iyo dawladda Soomaaliyeed ay aqoonsan tahay shahaadooyinkooda. marka ugu horeysa waxaan leeyahay cid walba oo ka soo shaqaysay waxbarashada Soomaaliyeed waqtiga ay ugu dhibka badneed waxaan leenahay waxaan idin haynaa sharaf iyo abaal dalkiinana waxaad ku leedihiin karaamo. kuwa shahaadooyinka ka soo qaatay iyo kuwa hadda dhigtana waxaan u sheegaynaa in dawladdiinnu ay idin aqoonsan tahay. laakiin xukuumadda iyo wasaaradda waxbarashada iyo jaamacadaha waxaa laga rabaa in la sii wanaajiyo tayada waxbarashada waddanka si aan ula tartarno dawladaha dunida iyo dunida inteeda kale.